السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. beeraleyda Soomaaliyeed waa idin salaamay meel walba joogtaan. maanta waxaan joognaa demonstrationkii fiilkii Super Napier. meeshaan bil ka hor yaan imaanay. cawskan iga dambeeyo markaan istaago cawskan iga dambeeyo waa Super Napier. fiirin waa liga dheeriya xataa gacmateeda hadda saas dhaho waa almost 2 mitir iyo wax 2 mitir iyo wax waaye. wuxuu jiraa 7 jeer baa cawskan la jaray oo la gooyay ayaantii hore marka wuxuu jiray 15 bari markaan imaanaynay cawskan wuu gagaabnaa. hadda marka waxaa laga joogaa adigu 28 days cawskan ayadoo saas tahay roob fiican buu helay meeshii loogu talagalay wuu dhaafay sidaa intusi doono insha Allah iga dambeyso. waana Super Napier boqorkii cawsaska ayaa dhihi karaa. in sheegay cawskan waa 2 mitir iyo dheerka leegi waliba waa dheer 2 mitir iyo bar waaye. 2 mitir qayb baa ka dhaadheer waad aragtay intuu leeg yahay 2 mitir iyo waxaan dhihi karaa 30 sentimitir adoo 2 mitir iyo bar almost uu ku dhow yahay. cawskan aad arkayso waa Super Napier. wuxuuna jiraa bil iyo bar. xilligii loogu talagalay waxay ahayd in la gooyo bil kadib sababtoo meeshii loogu talagalay in lagu jaro waa dhaafay. hadda fiiri bahalkan inta madax oo ku taalo bal inta madax oo bahalkan salkiisa waa hal xabo salkiisa cawskan qaybtan salkiisa intay la egta fiiri waxaan dhihi karaa 100 kor way u dhaaftay sababtoo salkan weyninka badan oo hal xabo ka farcamay fiiri just 1 month buna jiraa. kan kala fiiri asaga inta ka farcantay soomaartid inta uu jiro soomaartid intuu jiro. cawskan waa caws cajiib ah oo mucjiso ah oo la yaab leh oo dadka beeraleyda xoolo dhaqatada ah inay bartaan laga rabaa ama dadka ganacsatada inay ka ganacsadaan caws rabaan. maxaa yeelay number 1 cawskan wax soo saarkiisa badan hektarkii waxaa ku tashanaysaa 480 tan ilaa 500 tan. waxaan aragnay nin beeraley ah oo abuurka qaatay cawskan meeshan ka gatay oo ka helay 1,000 tan oo wax yar ka dhiman ka waran imagine 1,000 tan waa xagee waana just 1 hectar. muxuu yeelay beeraleydaas horta midda koobaad dhul kulul buu joogaa dhulkan xeebeedka Kenya oo dhulkan Malindi la dhaho waa la yaqaan waa dhul kulul oo aad u kulul. number 2 waxa waaye wuxuu leeyahay lo uu ku dhaqdaa dairy lo'da caanaha oo ilaa dhan 40 wuxuu sameeyaa marka digadi wuxuu ku siiyaa wuxuu ku daa xaarka xoolaha wuxuu siiyaa ku nafaqeeyaa beerta sidoo kalena wuxuu siiyaa kale urea sometimes siiyaa oo nitrogen ku u badiyaa. midda labaad waxa waaye waxyaalaha maartay lo'da markay xaarto kale kaadidooda iyo dhacdhacaankana waa lagu sayrsayraa oo geesaha looga sayraa si loo nafaqeeyo nafaqo badan bay leedahay oo biyo markii la raaciyo biyahaas la raacinayo lagu dhaqayo qolka ay degan yihiin lo la raacamo oo waa lo meel ku xareysan. marka 1,000 tan ku dhawaad 1,000 tan buu qofka iyo beeraleydaas asaga ka hayaa waana wax xaqiiqo ah. cawskan marka dhulka tropicalka ah dhulka kulul oo jawi cimilada kulul qorrax haduu helo bil walba waad goosanaysaa ka soo qaad maanta waad abuurtay 3 bilood baa sugtay ama dhulka kulul oo kale 75 days waaye ama 90 days iska badheebo. marka inta samayso 3 bilood markaad ka jarto sanadkii meeqa ka soo harayso 3 bilood marka laga jaro waa 9 bilood 9 bilood oo ka waran mid walba bil walba goosanaysid ka waran sanadkii waxa waaye 10 jeer ilaa 9 jeer ba iska dhig 9 jeer ba sanadkii goosan kartaa. and there is no caws intaas la goosan karo maba jirabo caws 9 jeer sanadkii la goosan karo waa adag tahay. waxa alfa ugu soo dhow alfa productionkiisa very low ah ma fahantay 9 jeer goosanaysaa sida normalka dhulkan oo yara qabowga ah waa 45 days every 45 days jaranaysaa. laakiin dhulka kulul
waxaa xaqiiqaha la xisaabiyey bil walbo inaad goosanaysa. waxaa number hadda kan meeshan ku yaalo wuxuu diyaar ku noqday just 1 month. bil buu diyaar ku noqday. dhulkan waa dhul qabow iyo kuleyl isugu jiro. kuleylkiisana waa cimilo fiican baa jirto xilli qabow ama sida maanta oo kale. laakiin waxaa la ogaaday inuu bil diyaar ku noqonayo. meeshan waxaan imaanay muxuu ahaa 28 bil baa kasoo wareegatay. cawskaana saanu noqday yani xilligii jarmada waaba dhaafayba. ma fahantay? marka cawskan number 1 wuxuu cawsaska uga fiican yahay waa wax soo saarkiisa oo badan bil walba ood goosanaysid. number 2 waxaa waaye proteinkiisa oo aad u badan. waxaa la isku cross gareeyey napier grass cawska la dhahayo ama elephant grass midka la dhahayo iyo palm millet. waxaa xaqiiqo ku ah in palm millet lagu cross gareeyey. hadda qaybtan fiiri, calaamadan waa calaamad ku tusinayso inuu cawskan laga waxeeyey palm millet oo bahashan dhumana lagu garanaya cawska palm millet la dhahayo. marka waxaa marka ku cadaanayso yani wataasaa palm millet hadaad maqashid mirtiisa wataasaa. cawskan hadda super napier qayb kasoo dhexbaxaysaa jirto crossing buu ku tusinaya waxyaalaha in laisku cross gareeyo yani labada caws la isku talaala taasaa ku tusinayso. marka number 2 waxaa waye cawskan proteinkiisa oo aad u sareeyo. maxaa waye proteinkiisa meeqaabu gaaraya waa 16 ilaa 18 boqolkiiba 16 ilaa 18. marka ka waran waa cawsada legume-ka la dhahayo bahalaha legume-ka sida alfa oo kale ayaa 20 iyo 18 ah. marka cawskan asagana sidoo kale proteinkiisa oo xagga caanaha badiyo ama xagga cayilka badiyo oo kale. maxaa ku saaray xagga cayilka neef qofka cayilinayo kale neef inuu cayiliyo rabo waxaa la fiirinaya energy levelka energygiisa marka waxaa waaye 9 kiilo marka la cabirayo energyga. marka energygiisana kalena korbu waa energy sareeyo. cawskan marka taasna wuu ku fiican yahay. sidoo kale wuxuu ku fiican yahay cawskan wax xajiin ma laho. caleentiisa wax xajiin ay leedahay ma laho. saasay nadiif u tahay. qofka jarayo waad qaadaysaa wax uu ku caaroonayo qofka mala. xajiinta intuu ka leeyahay waa intaan bes ah. meeshaas yuu xajiinta ka leeyahay. number 3 waxaa waaye cawskan wuxuu ku fiican yahay waxaa waaye xagga muxuu ahaa waxaa u waxayn kartaa xoolahaada hadda soo jartid yaa direct u siin kartaa asagoo siisa wax uu dhimaya ma laho. sidoo kale waxaa samayn kartaa haddii la shiido cawskan qofkii for example adi xoolaa safrin rabtaa baddaa dhex marin kartaa rabtaa ama waxaa rabtaa inaad beerley ka gado see uga gadaysaa. habka ugu fiican waxaa waaye inaad shiido oo ka waxaysa silage waxaa lahaa cawska waa la shiidayaa bahal lagu daro oo jiro waxaa jirta la dhaho molasses ama wax kale oo lagu daro oo cawskaas ka dhigaya inuu maaragtay yacni nafaqaadkiisa uu kor u qaado ilaa 10 sanana saas iskama bedelaya. molasses ko kale handar wuxuu ku fiican yahay silage inaad waxayso xilliyada roobabka kale cawska haddaad isticmaalayn yacni storeka gelinaysaa waa la shiidayaa meel waxaa loogu talagalay ensil la dhaho god loogu talagalay oo silage ah yaa lagu ridaa ama baca loogu talagalay. bacahaas beeraleydoo kale markay xoolaha safrinayaan oo kale way ayagoo ku jiraan bacal loogu talagalay oo silage-ka oo hawada ka ilaalinayso oo 300 ilaa iyo 350 kiilo qaadaya yaa lagu ridayaa. baddaa ula safrinaysaa. xoolaha waa loo daadinayaa ma gaajoobayaan. xoolahana waxaa waaye nafaqaad wuxuu siinaya aan caadi ahayn. hal shayna kama soo reebayaan hal xaba ma khasaarinayaan markii silage looga waxeeyo oo sababtoo abaalkii waxaa looga dhigay cunto maaragtay aan caadi ahayn nafaqadooda iyo carafta iyo wax walba soo jiidashada meel walba ku dheerayso. marka waxaa waaye silage markii looga waxeeyo cawskan wuxuu faa'iido u leeyahay 2 jibaar. sababta weligii markaa 10 sano dhan weligii ma halaabay intuu silage-kaas ku jiro in muxuu hadaad hawo ku sii dayso maaha laakiin hawada hadaad ka ilaalinayso mar walba isma bedelayo. maxaa kale sidoo kale waxaa waaye xoolaha nafaqaadkiisa sii badan markaa silage samayso yacni bakteeriyada ku dhalanayso. bakteeriyada xoolaha yacni nafaqaadka siiso oo nafaqaadka siiso oo yacni bakteeriyada tii xanuunka keenaysa ma ahaya waa tii faa'iidada xoolaha u lahayd oo xagga digestionka ama muxuu ahaa neefka inuu maaragtay cunada shiido ka caawinaysay uu qaato jirkiisa gasho. ma fahantay? marka xaggaas bakteeriyada yaa ku badanayso oo neefka manaafacaadda u yeelanaysay. taasna waxay ka caawinaysaa neefka muxuu ahaa inuu digestionkiisa ama dheefshiidkiisa uu boqolkiiba muxuu ahaa 90% kor u qaado. cawskaana marka ayada saas loo siiyo 90% xoolaha way cunayaan. yacni way cunayaan maxaa ka wada yacni jirkoodu gelayaa
caanay isku bedelayaan ama cayil isku bedelayaan muscles isku bedelayaan ama hilib isku bedelayaan marka silage-ka faa'iidooyinkaas badan buu leeyahay silage-ka meel walba yacni kaba soo qaadba xoolaha waxaa u safrinaysaa meel dheer gaari baa saartay ama waxaa la saaray markab baa la saaray silage-ka marka waxaa waaye juwaano asagoo ugu jiro kolba xoog baa loo daadin wuxuu kaloo ku fiican yahay space badan kaama qaadanayo oo silage oo kale bacda lagu waxeeyo waxaa waaye space badan ma qaadanayo sidii markii loo bambadhigo midkaan la dhahayo maxaa la jiray hayga cawska hadda la xirxiro hayga la dhahayo xirmada laga dhigay dadka safrinayo kale xirma wuxuu ka qaadanaya maaragtay space weyn laakiin markii la kiileeyo oo sidii silage-ka loo waxeeyo kaama qaadanayo maxaa la dhihi jiray space weyn ama nafaas weyn kaama qaadanayo waxaa laga yaaba 3 tan oo silage ah inay galaan meel ay galayeen 1 tan oo hay ah marka faa'iidadaas maarta yacni space weyn buu hayga ka qaadanaya garaamkiisana waa yarya meel uu 1 tan oo maartay oo ka qaatay silage ah 1 tan oo hay ay ka galay yacni ka wada waxaa galayso 3 tan oo silage ah marka waxaa waay space-ki yaraa yaa waxaa ku galay tan badan cawskan waa sababta loo yiri super napier waa boqorka cawsaska maxaa yeelay xoolaha horta waa jecel yihiin waa caws kortiisa badan tahay digestionkiisa ama muxuu ahaa waa xoolaha hadiiba way digest garanayaan oo waa caws sidiisa cajiib u ah oo mucjiso ah oo maaragtay meel walba cawsaska wax walba xagga wax soo saarka xagga proteinka xagga maaragtay energy-ga xagga maaragtay xoolaha sida u quudanayaan xagga maaragtay palatability-ga yani xoolaha si u jecel yihiin oo maaragtay caws asaga iyo caws kale haddii la iska barbar dhigo xoolaha loo dhigo kan bay qaadanayaan sababto maxaa waaye waa ka macaan cawska kale neefkii dhadhamiyaa wax kale ma fiirinaya asagoo fiirinaya waa caws aad u macaan sida alfa alfa oo kale laakiin alfa alfa dhibkiisa maxaa waaye alfa alfa wax soo saarkiisa yar laakiin cawskan wax loo gaaro ma aha wax loo gaaro inaba ma aha wax la siisan kara ma aha waa hadda meeshan waa hal godkii labaad godkii saddexaad godkii afaraad godkii shanaad godkii lixaad godkii toddobaad godkii sideedaad godkii sagaalaad tobnaad koo tobnaad labaiyo tobnaad hadda meeshan waa meesha demonstrationka hadda aan ku jirno oo loogu talagalay beeraleyda in lagu tababaro waxaana ku yaalo waxaa laga waxay hadda qaybtan 12 god laakiin 12kaas god halkii xababa haddaad ka guranayso meesha hal xabaa ku jiro halkaan xababa haddaa intaan oo madax 100 madax ku jiro meeqaan neef ku quudinaysaa ka waran imagine waa 12 god bas ah marka waxaa waaye wuuna dhaafay habkii loogu talagalay bilya barbas uu ku dhaafay inuu ku dhaafay maxaa lagu garanayaa calaamadaana lagu garanayaa bahashan weynaatay tan inaysaan u weynaato lama rabo inaysaan u jilcanaataa laga rabaa jilaacan ay tahay oo saan u jilcan tahay si uu neefka u cuno laakiin size-kan hadday gaarto waxaa waa adkaanaysaa looguma talagelin inaysaan adkaato laakiin hadda kan maxaa u daynay waxaa u daynay si looga diyaariyo abuur looga diyaariyo asaan loo waxeeyey just waxaa la siinayaa ilaa 7 months kala la siinayaa abuur u noqonaa marka abuurka markii la waxeynayay node waxa la dhaho ama xibintan iyo xibintan yaa qofka markii beeraleydu uu abuuranayo 2 xibnood baa laga fiiriyaa 2 xibnood buu qaadanayaa 2 xibnood markii loo jaro sida ay ku tusi doono kala halkan waa kana sabab fahmin hadda kan muxuu leeyahay 2 xibnood 3 xibnood hadda kan leeyahay laakiin sida saxda maxaa waaye tan hadda tan iska badaatan waa dilacday kow labo dhulka markii la gelinayo see loo gelinayaa dhulka markii la gelinayo marka hal qayb baa gelinaysaa xibintan oo kale yaa dhulka saana u gelinaysaa dhulka markaa gelinaysa saana u gelinaysaa samaartu u yaallo 45 degrees ahaan 45 degrees ahaan u yaalaa marka xibintaasaa loo waxeeyaa hadda xibinta kale waa inay ciidda waxaysmaa hal xibin ay dhulka taallaa tan kalena ay u dhowdahay dhulka taabanayso waa fahanteen tan waa inay dhulka taabanayso marka sidaasaa loo abuuraa yacni markay midaan soo bixi weydo si ay tan u baxdo waana halkaan meeshuu geedka ka baxo sida xagga in kugu sheegnay sida halkaan midda ka abuuran oo kale kuwii halkaan laga jaro kale tabti kaasaa laga abuuray hal xibin baa meeshaan dhan laga abuuray
marka hadda fiiri kuwii waaweynaaday iyo kuwa yaryarka oo soo baxay markay kuwa waaweynaataan kuwa yaryaraa soo baxayo marka walaalayaal cawskan laga faa'iideysto insha Allah waa la soo dhiibi karaa meel walbo diyaarada la soo saari karaa wadada la soo mari karaa adi maalintii la soo gooyo marka laga bixiyo 14 bari ilaa 15 bari buu maartay sidiisa ahaanaya wixii inta ka dambeeyo germinationkiisa ama soo bixitaankiisa hoos u dhacayo midda kale cawskan Super Napier wuxuu kugu yaalayaa beertaada 7 ilaa 8 sano 8 sano ama 7 sano ayuu beertaada ku yaalayaa oo waxba iska bedeleen productionkiisa sidaas ahaanaya sii badanaya intaas wixii ka dambeeya waa iska waa iska bixinaysaa asagoo fresh ku bedelaysaa marka waxyaaluhu ku fiican marka cawskan waxa waaye waqtiga dheer uu beertaada ku yaalayo sanadkiina waxa waaye dhulka qabow oo kale waa 7 jeer laakiin dhulka kulul sida dhulka deegaanada Soomaalida oo kale 10 ilaa 9 jeer waa sure inuu ka baxay sababtoo bil walba hadaad goynayso sanadka koowaad ka baxay bil walba hadaad goynayso ka waran sanadkii hore abuurtay sanadkan bil walba goynayso xataa 12 bilood buu gaaray ama 10 bilood iska dheh ka waran caws bil walba la goynayo oo aragtay ma jira waa adagtay si lagu arko oo handara productionkiisa ku siinay 480 tan ilaa ka sii sarreeyso sababtoo bil walba hadaad goynayso waxa waaye wax soo saarka uu ka sii badanaa dhulka tropicalka ama kulul